شرفت له حكرتك رنيرة قبلها دمانتين وحديكم السلام صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كنا قدام أمة الإسلام عن هاي وحكم بالله أيضا قرآنك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ولشان وضحضك بالشدة ما أنت يوحان كوكا ذلك دوما أنه وذكرنا باب إدى أما وحي لدى بيئة صومالية سوغارتي ساواها يسامين تأي دلكين يددكين كل leedahay iyo sidee wax looga qaban karaa oo dhibaatooyinkaasi haysta deegaanka mar haddii deegaanku dhibaato ay ka dhacdana dadkay saamaysaa dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay waxay saameyn weyn ku yeesheen deegaanka waxaana waxyeello xoog leh ay soo gaartay deegaanka haddii ay noqon lahayd dhinaca dhirta haddii ay noqon lahayd xoolaha oo iyagana ay ku tiirsan yihiin dhammaantood bini aadamka ama dadka Soomaaliyeed dhibaataynta ama burburkii soo gaaray Soomaaliya waxay si toos ah u saameysay bii'ada gaar ahaan xaalufinta oo dhulkii oo xaalufay abaarta iyo xoolaha oo ay dadku dheefsadaan oo waxyeello ay soo gaartay sidoo kale waxay saameyn ku yeelatay dhinaca beeraha oo mar haddii colaad ay jirto dadku si joogto ah wax uma beeran karaan masiibooyinkaas ku dhacay ama waxyeelada soo gaartay ama baaba ah ku dhacay deegaanka waxa uu noqday mid dadka Soomaaliyeed si weyn u saameeyay waxaana ka dhashay cunto yari waxa ka dhashay xaaluf waxa ka dhashay in deegaankii uu noqdo mid aan kontroleyn ama mid aan laga warhayn dhibaatada haysata waxaanad ogtihiin in marar badan lagu arkay deegaano kala duwan fuustooyin waaweyn oo ay ka buuxaan walxo ama waxyaabaha la yidhaahdo nuclear waste-ga ama wasaqda oo nuclearka waxaa lagu arkay oo kale badda oo marar qaarkood ay maaragtay noolihii ku jiray sida kalluunka ay in badan bannaanka usoo baxaan sidaas oo kale waxaa baaba'ay dhirtii waxay keentay in dhirta lafteedii maaragtay ay saameyn ku yeelato iyadoo ay marka dhibaatooyinkaas faraha badan ay jiraan ayaa haddana dhinaca kale waxaa adduunka ka jiro wax la yidhaahdo isbeddel cimilo taas oo saameyn weyn ku leh dunida oo dhan waxaanad aragteen in marar badan ay dhacaan roobab mahigaan ah oo aad u ballaaran oo dalka markaasi maasheeya iyadoo aan loogu talagelin ama aanay hayn xataa xilligiisii mararka qaarkoodna ay wataan duufaano taasoo ka dhalatay saameynta ay isbeddelka cimiladu adduunku ay ku yeelatay maaha Soomaaliya wax u gaara laakiin Soomaaliya waxay maaragtay dhinaca kale dhibaatada u sii cusleysay iyada oo dagaaladii markay dhaceen dagaalkii burburay ay dhacday maaragtay xaalufin oo ay dhacday in dhirtii la jaro oo ay dhacday wixii shuruuc ahaa oo lagu ilaalin lahaa deegaanka oo meesha ka baxay haddaba waxaan ognahay in dhawaanahan ay jirtay xasilooni yar iyo dowlad oo inkastoo aanay dalka oo dhan gaarsiisanayn oo aanay ka shaqaynin haddana xasiloonidaas waxay keentay in laga fikiro sidii deegaanka wax looga qaban lahaa dowladda marka federaalka ee Soomaaliya waxay abuurtay waax ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha oo u qaabilsan dhinaca deegaanka iyo isbeddelka cimilada si ay wax looga qabto isku daygaasi wuxuu rajo badan u abuuray dadka Soomaalida waxaas deegaanka ama bii'ada ee isbeddelka cimilada xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa u xilsaaran maareynta isku dubridda iyo kormeerka dhammaan arrimaha quseeya deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya waxay sii wadaa oo ay kaalin muhiim ah ka qaadataa dejinta siyaasadda iyo qaab-dhismeedka sharci ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada dowladda Soomaaliyeed oo wada dadaallo muuqda kuna bixisay effort ama dadaal weyn
sidii wax looga qaban lahaa qataraha ka dhalan kara isbeddelka cimilada sida hadda aan sheegnay roobabka daadadka duufaanada amaba ay keeni karaan dhirta oo xaalufinta kadibna ay dhalato wax la yidhaahdo dhulkii oo noqdo dhul gelingelin ah oo aan waxba ka baxayn waxaa hadda la socotaa in dhowaan ay jirtay abaar kadib markii xilli roobaadkii loogu talagalay uu meesha ka baxay dowladda federaalka Soomaaliya waxay ama xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu qorsheeyay in la helo siyaasad looga shaqeeyo isbeddelkaas cimilada iyo daryeelka deegaanka sanadka 2020 ay arrintaasi bilaabatay siyaasadda qaranka isbeddelka cimilada Soomaaliya 2020 ayaa muhiim u ah hirgelinta iyo kamargelinta yoolka horumarineed ee joogtada sustainable development goal waxa la yiraahdo oo SDG loo yaqaan 2015 ayaa adduunku qaatay Soomaaliya markaas si ay taas wax uga qabato ayay samaysay siyaasad arrimahaas wax looga qabanayo waxaana qorsheysan in siyaasadda qaranka ee ku wajahan arrintaasi 2020 ilaa iyo 2024 haddaba muxuu yahay marka fahamka burburka ama baabaa ku yimid bee'ada sababaha keenay doorka dadkeenu ay ku leeyihiin saamaynta ay ku leedahay nolosha iyo xalinta suurtagalka in wax laga qabto aafadaasi ama dhibaatada ku wajahan deegaankeena Soomaaliya madasha wadahadalka bulshada oo dul istaagta arrimaha ku saabsan masiirka ummadda waxyaabaha saameynayo maanta waxaan dul istaagi doonaa oo ka wada doodi doonaa baabaa ku dhacay ama waxyeelada gaartay deegaankeena sababaha keenay iyo sidee wax looga qaban karaa oo arrintaasi looga hortagi karaa waxaa marti iigu ah doodan galabta aan kaga doodayno arrimahaasi Maxamed Daahir Axmed oo ah agaasimaha maamulka maareynta agaasinka cimilada ama isbeddelka cimilada iyo deegaanka oo ah ninkan dhalinyarada ay dhinaciga fadhiya sidoo kale waxaa nagala qaybgeli doonta doodeena Ifraax Nuur Cali oo ah gabar aqoon-yahana oo ka baxday jaamacadda ummadda gaar ahaan ku takhasustay cilmiga deegaanka ama environment aadan waxaan ugu faraxsanahay in dad badan ay arrintan danaynayaan oo aan rabno inaan ku dul istaagno ka doodno oo qodobadaasi aan soo xusay ee ah baaba ama waxyeelada ku dhacday deegaanka maxaa sababay sidee looga hortagi karaa oo wax looga qaban karaa intan oo mathalay dadweynaha doodan waxay leedahay muhiimad gaar ama xiise gaar sababtan waxay tahay qof kasta oo Soomaali ah ay saameynaysaa hadda waxay u tihiin in abaarihii dhacay ay saameeyeen dad badan oo Soomaali ah dad badan oo Soomaali ay ku waayeen xoolahoodii dad badan oo Soomaali ah ay xitaa waayeen biyihii cabbi lahaayeen oo u dhinteen marka waxay keenaysaa in dad badan ay ka soo qaxaan deegaanadii ay deganaayeen oo ay culays kale ku soo noqdaan magaalooyinka si marka aan arrimahaas oo dhan u gorfeyno waxaan dhahnaa doodeenno waxay ku saabsan tahay baaba ku yimid deegaanka sababaha keena iyo sidee wax looga qaban karaa arrimahaasi waxyeelada ku ah deegaanka waxaan rabaa marka inaan marka ugu horeysa aan Maxamed Daahir Axmed oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka tirsan gaar ahaan agaasinka aan soo tilmaanay ee ah isbeddelka cimilada iyo deegaanka aan ku horeeyo Daahir maxaad nooga sheegi kartaa maxaad bulshada ama dadweynaha maanta doodan ka qayb galaya aad uga faahfaahin kartaa arrinta ku saabsan degradation waxaa la yiraahdaa يعني waxyaabo oo gaartay deegaanka maxaa sabab su'aasha marka waxay tahay sababaha keena iyo sidee wax looga qaban karaa marka inta aan u gelin sidee wax looga qaban karaa marka hore aan ka doodno oo doodayno aan ku gorfeyno oo ku dul istaagno arrinta ku saabsan waxyeelada ku dhacday deegaanka maxaa keena ama maxaa sabab bismillahirrahmanirrahim assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh madasha adan mahad celinayaa iyo shayga jaamacadda ka mid ah sidoo kale dhalinyarada quruxda badan leh maanta ka soo qayb galay barnaamijkan rabana inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka deegaanka iyagana aadan ugu mahad celinaa waxaan is leeyahay dalkeenu wuxuu
burburay dowladdii ay dhacday 1991 marka deegaanku wuxuu ka mid noqday waxyaabaha dhibaatada ugu badan leh ay ka soo gaartay burburkii dowladdii Soomaaliya iyo qaranjabkii ku dhacay maxaa la yiraahdaa dalkeena hooyo sida aan u aragnayba inay burbureen dhismooyin badan dadkii ay barakaceen systemkii iyo nidaamkii dowladda uu maxaa la yiraahdaa laftiisa collapse garoobay deegaankuna wuxuu ka mid noqday maxaa la yiraahdaa waxyaabihii ay dhibaatadaasi ay saameysay deegaanka markaan leenahay sidoo kale waxaa ka mid ah duurjoogta oo iyadu lafteedu qaybo badan oo duurjoogta ka mid ah ay barakaceen sida ibn aadanka dadka u barakaceen oo kaleeto ugu barakaceen maxaa la yiraahdaa gobolada dowladaha dariska ah ay u barakaceen sidoo kaleeto duurjoogta lafteedu waxaa ku dhacday in lafteedii la ugaarsado oo aan haddaba arkayno in ugaarsi rasmiya uu ka jiro una baahan weli iyadoo ay qayb ka tahay ilaa in aada loo ilaaliyo ama systemkii iyo shuruucdeedii la waafajisi maxaa la yiraahdaa ay u badbaadaan waxaan is leeyahay waxyaabaha sababay waxaa ka mid ah marka koowaad dadku waxay lahaan jireen alternative livelihood ama wax ay ku noolaadaan oo kale lahaan jireen dadku way shaqaysan jireen maxaa la yiraahdaa nolol maalmeedka waxay ka soo saaran jireen meelo kale ta koowaad waxaa bilaabatay in dadka ay guraan geedaha si ay uga sameeyaan dhuxul si ay ugu dhistaan guryo xarar iyo waa aragteen waxyaabaha laga sameeyo si markaasi dadka ay u badbaadiyaan noloshooda ama ay uga helaan quutulyoonka caruurtooda ee maalinkii halkaas marka waxaa isaga imaaday laba dhinac oo ah dadkii maalinlaha usoo gurayay dhuxusha ahaa iyagu muruqmaalkii goynayay dhuxusha lambar labo dadkii lahaa gaadiidka iyo alaabta lagu soo gurayo maxaa la yiraahdaa dhuxushaas ama geedahaas number 3 ganacsato Soomaaliyeed oo iyaga ay dani ugu jirto in geedahaas la soo guro ka sameeyo dhuxul aan kaliya aan lagu isticmaalin gudaha xitaa loo dhoofiyo dalka dibadiisa oo aan arkayno culeysyada ay sababtay adduunka inuu baan galiyay oo baangareeyay haddana ilaa weli ay sii socoto gobollo badan oo Soomaaliya qaybo ka mid ah ay weli ka socoto xaalufinta dhirta marka koowaad land degradation ama nabaad guurka dhulka waxaa sababay dadkii oo ku jeedsay dhirtii ku jeedsaday si ay uga helaan nolol maalmeed taasi waa mid ta labaad waxaa ka mid ah waxaa la yiraahdo hazards ama maxaa la yiraahdaa lafteedu waxaa ka mid ah in droughts ay dhacdo abaaro ay dhacaan in ay maxaa la yiraahdaa biyo fatahaado ay dhacaan waxaan arkaynaa dadkeena Soomaaliyeed laba dhibaataan u dhaxaynaa oo ah in dadka ay abaar u dhamaadaan taasi oo sababaysa biyo la'aan roob la'aan maxaa la yiraahdaa ka diyaar garow la'aan iyo u sheegid la'aan lafteedu moogtahay dowladda burburka intaan dowlad burburin ka hor waxaa jiri jirtay in la sii sahmiyo oo la yiraahdo waxaana soo socda abaaraha soo socda ha laga gaashaanto fatahaadaha soo socda roob xoog badan duufaanaha dhacaya dabaylaha jira in laga sii gaashaanto laakiin hadda culeysyada jira awgood systemyadii isku xiraayo meesha ka baxay awgood waxay sababaysaa in wax aan la filanaynin uu dhaco sidaa daraaddeed marka waxaan isleeyahay intaasoo mushkiladood oo isku tagtay ayaa waxay sababtay maxaa la yiraahdaa dhibaatooyinka sababa ama sababta u ah in deegaanku uu burburo nabaad guuro maxaa la yiraahdaa dadkuna ay droughts iyo maxaa la yiraahdaa abaarahaas iyo maxaa la yiraahdaa biyahaas ay ku baaba'aan waxaan isleeyahay xalka u gudbi doonaa laakiin sababaha waa intaas ifrax maxaad ku daraysaa maadaama aad tahay qof cilmiga environmentka ama deegaanka iyo isbedelka cimilada bartay maxaa ku daraysaa arrinta uu noo sharxay walaalkeen maxamed daahir waa mahadsan tahay waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan bulshada ka soo qayb gashay barnaamijkeena muhiimadda ku saareyno oo naga hadleyno
baaba bii'ada loo geysanayo marka si guud looga hadlo markii loo fiiriyo United Nations ama qaramada midoobay waxay sheegtay tobanka qatar ee maanta adduunka ugu weyn ee haysto inay tahay mid ugu horeysa ay tahay in baaba loo geysto deegaanka ama bii'ada aan ku noolnahay marka waxaan dhihi lahay waa arin aad u muhiim u ah in laga hadlo oo aad dadka loogu bogaadiyo inay ka deeyaan deegaanka baaba ama si kale ta burburka loo geysanayo deegaanka ay kamid tahay in la wasaqeeyo deegaanka in dhirta laga jaro deforestation lagu sameeyo waxaan kaloo dhihi lahay baaba deegaanka markaas si guud uga hadlo wuxuu ku saabsan yahay baaba deegaanka markaas si guud uga hadlo wuxuu ku saabsan yahay in la baabiyo deegaanka iyadoo hoos loo dhigayo resourciga kheyraadka aan haysano waxaa kamid ah inaan haysano hawo nadiif ah iyo inaan haysano biyo nadiif ah iyo caro nadiif aan wax ku beeran karno wax ka soo saaran karno haddii deegaankii ama bii'adii aan ku nooleena loo geysto baaba waxay ka dhalanayso inaan weyno hawo nadiif aan ku noolaano taasoo keeni karto inay hawada wasaqoodo ama diqooga hawada ay ka dhacdo waxaa kaloo saameyn kale loo geysan karaa biyihii oo la cabaayay ama ground water ka ahna biyaha gunta hoose ku jiro ama gunta sare biyaha saaran oo kale in saameyn loo geysto waxaa kaloo saameyn loo geysanaya iyadana caradii oo ah meeshii oo aan wax ka soo saaranaynin noolaha dhan oo ku noolaay marka waxaan dhihi lahaa barnaamijkan aad ayuu muhiim u yahay in dadka lagala hadlo oo loo sheego in lagu wacyigeliyo inay deegaanka ka ilaaliyaan dhibaatooyinka oo ku saabsan in noocyada kamid waxaa kamid ah inay horta dadka iska ilaaliyaan deforestationka oo ugu horeeyo oo dhibaato weyn ku haya maanta deegaankeena Soomaaliya deforestationka waxyaabaha sababay waxaa kamid ah inay dadkii aad u bateen dadka markay bataan waxay u baahanayaan inay isticmaal badan sameeyaan isticmaalka badan ay sameynayaan waxaa kamid ah inay u baahdaan guryo ay degaan guryahaas ay degayaan waxa laga sameynayo ama waa dhirti in la jaro loo baahanaya dhirti in la jaro naqanaysa waxaa kaloo loo baahanaya in furnitures ama qalabyo oo guryaha la dhigto oo isheeg in loo baahdo iyadan waxay keenaysaa in dhirti la jaro dhirta baahida ugu weyn oo loo qabo waxay tahay in cunto laga helo in ay ku nool yihiin noolayaal oo kamid yihiin duurjoogta haddii geedahaas meesha laga jaro way ka baxayaan waxay ku qasban yihiin inay ka nabad guuraan ee ka tagaan maadaama ay meesha ka heleen nolol ee kamid tahay cunto iyo biyo nadiif ah sidaas oo kale waxaa kamid ah haddii ay waayaan duurjoogta biyo nadiif wabigii lagu shubo qashin lagu shubo ama la wasaqeeyo oo sun lagu shubo oo macnaha warshadihii oo kale inay wasaq ku daadiyaan wabigii waxay keenaysaa iyadana in la waayo biyo nadiif taasna ay sababayso inay macnaha meesha ka baxaan duurjoogtii noolihii meesha ku noolaa inuu ka baxo waxaan aad u bogaadinayaa barnaamijkan oo dadka loogu faa'iideeyo oo loo wacyigeliyo marka soo jeesto waxaan dhihi lahaa waa wax aad muhiim u ah in dadka lagala hadlo oo loo kala dhigo oo loo fahansiiyo si ay u ilaaliyaan deegaankeena muhiimad gaarna loo siiyo deegaanka intaada ka bixin ifrax doorka ay bulshada ku leedahay waxyeelanta bii'ada bal wax nooga sheeg waa mahadsan tahay bulshada markii la fiiriyo wax door badan ay ku lahaan kartaa bulshada inay saameyn u geysato bii'ada deegaanka waxaa kamid ah marka hore inay sameeyaan deforestation dhirta baabi'iyaan ay jaraan si ay u helaan cunto daawo ay ugu sameystaan maxaa kale ku sameyn karaan inay qashinkii oo kale inay soo qaadaan ku shubaan wadooyinka taas waxay keenaysaa in meesha ka dhalato unhealthy cuduro inay ka dhashtaan caafimaad darro inay ka dhashtaan ee ka dilaacaan saameyn bilaadanka inay u geysato oo kamid tahay inay caafimaad darro bilaadanka u geysato ee kamid tahay in hawadii la wasaqeeyo oo gawaaridii iyo transportationkii inay sababto iyadana in hawadii wasaqeyso taasna ay saameyn u geysanayso bilaadanka hawadii haddii wasaqoodo bilaadanka wuxuu ku qasbanaanaa inuu qaato joyce ma u haysto inuu dhaho hawada wasaqeysada ma qaadan kar marka saas waxay saameyn u keensanaysaa in bilaadanki saameyn xoog leh ku keensato markuu qaato hawadii wasaqeysneed ee u keento cudurro ay kamid tahay sida asmada oo neefta loo yaqaano iyo cudurrada ay kamid tahay oo fureerka oo kale qofka inuu ku adkaato neefta inuu qaato ay keeni kartaa waxa kale oo ka dhalan karo bilaadanka saameynta kale u geysan karto waxa kamid ah inay ka dilaacaan
waterborne disease wax loo yaqaano oo ay keenaan biyaha wasaqaysan oo kale ay kamid tahay malaariyada inay ka dhalato iyo waxa kale kamid ah tiifooga oo kale cudurka loo yaqaan inay ka dhalato mar walba oo wadankeena oo ka dhaco maxaa la fatahaad waxay sababtaa in markii loo fiiriyo dhanka dhibaatada markii loo fiiriyo bil'aadamka soo gaara waxa kamid ah caafimaad daro inuu ka soo gaaro oo ah inay biyihii oo wabigii markii oo qashinka lagu shubay oo soo burqaday oo fatahaad sameeyo oo dalagii jara oo dadkii meesha ku noolaa oo ay ku qasbanaa inay kasoo guuraan magaaladoodii xaafadihii magaaladii soo dhex galaan ee kasoo guuraan meeshoodii waxay ku qasban yihiin inay macnaha oo biyihii wasaqaysnaa inay isticmaalaan haddii isticmaalo waxay ku soo waaya cudurada ka mid taha marka tiifoog oo kale ka mid ay keeni karto aad iyo aad ay u mahadsan tahay ifraax si oo waadixa ama faahfaahsan ayay maaragtay uga hadashay waxyeelada waxaan rabaa inaan maxamed daahir aan isagana siiyo fursad oo aan weydiiyo qataraha ay hadda tilmaantay amaba waxyeelada deegaanku ay yani saameynta ay ku yeelan karaan waa mahadsan tahay cabdiraxmaan walaasha ifraaxana si fiican bay oga hadashay waxaan is leeyahay wax buuran kuma dari doono waxaa ka mid a pollutionka ama maxaa la yidhaahdaa qiiqa lagu daayo hawada taasoo ay dhowr nooc ay isugu jiraan waa marka koowaad baabuurta duqowday ee magaalada yaalla waxaan wada ognahay wadamada kale adduunka haddii aada booqato waxaa jira limit ama sanad yaa jira gawaarida hadday dhaafaan aan magaalada lagu isticmaali karin waxaan isleeyahay hadda dalkeena intaan ka warqabno ma jiro maxaa la yidhaahdaa sharci xadidaya oo maxaa la yidhahdaa ay baarlamaanka baasgareeyeen ma jira sidoo kaleeto matoorada la isticmaalo shidaalka aada loo isticmaalo waa wada aragnaa matooro waaweyna magaalada dhexbartamaheeda yaalla laba dhibaato uu ayagana uu ku leeyahay deegaanka marka koowaad waa qiiqaas uu hawada ku daynayo oo laga yaabo guriga dariskiisa inay caruur ay ku nool yihiin iyo dad waayeela waxaa laga yaabaa inay xanuuno fara badan ay ka qaadaan number labo isla motoradaas waxay sababayaan noiska ama qaylada oo lafteeda ka mid tahay waxyaabaha deegaanka maxaa la yihahdaa ee dhibaatada u geysta sidoo kaleeto qashinka lagu shubo magaalada gudaheeda iyo badda lafteeda waxaan wada aragnaa in degmooyinka ku xeeran badda ay inta badan isticmaalaan in intay qashinka qaadaan ay badda ku shubaan ama lafteedu waxaa jirtay sanadihii hore lasoo dhaafay 2020gii hay-adaha laftooda ka mid ah un ka mid a laftooda dad baa contract ku siiyaan dadkaasa intay qaadaan waxay ku shubaan badda waan kala hadalnay ilaa heer prime minister ay gaartay markii dambe waxaa lagu guuleystay in la joojiyo in loo helo qashinka meel lagu shubo oo maxaa la yihahdaa laga joojiyo in badda lagu shubo oo dad contractorka ah laga joojiyo inay badda ay ku shubaan ama laftooda ay ku shubaan meelaha banaanka ah waxaa jiri jirtay areadan jaziira agteeda meel weyn oo qashinka lagu shubi jiray hadda waa la baabi'iyey oo maxaa la yihahdaa ma jirto waxayna ahayd tallaabo uu agaasinka iyo gobolka ay isla qaadeen sidoo kale waxaa ka mid ah xaalufinta dhirta oo aan ka hadalnay oo ay qeyb ka tahay dadkii inay nolol ka raadsadaan kuwa qaarna ay ganacsi ka raadsadaan geeda jarista intaasoo la isku darayba waxay ka mid tahay waxyaabaha dadku ay sababaan maxaa la yidhaahdaa saameyn kara deegaanka ama dhibaatooyin badan ku yeelan kara ama laftooda kuwa yeeshay sidaan hadda aragnay deegaanka maadaama aada xafiiska ra-iisul wasaaraha ka socoto waa maxay siyaasadda dowladda ee wax looga qabanayo khatarahaas dinar waa mahadsan tahay agaasinka deegaanka isbedelka cimilada isagoo ka duulaya dhibaatooyinka loo geysta deegaanka waxa uu sameeyey dhowr siyaasadood oo ay ugu horeyso siyaasadda qaran ee maareynta deegaanka 13 February 2020 ayay ansixiyeen golaha wasiirada waxaan horgeynay baarlamaanka maclasaf baarlamaanka waqtigiia ka dhamaaday waxay hadda hor taallaa baarlamaanka cusub waxaan rajaynayaa siyaasadaha ugu horeeya
ay ansixin doonaan inay ka mid noqoto siyaasadda maareynta deegaanka iyo aktigeedoo wada socdo, taasoo fududeynaysa in cid allaale ciddii dhibaato u geysanaysa deegaanka loo helo sharci lagu qaado. hadda ma jiro sharci ansaxsan oo lala tiigsan karo qofkii maxaa la yidhaahdaa waxyeeleeya oo ay baarlamaanka baasgareeyeen. hadday baarlamaanka ansixiyaan hadduu ilaah yidhaahdo waxay noqon doontaa guul weyn xagga ilaalinta deegaanka. sidoo kaleeto waxaan diyaarinay golaha wasiiradana horgeynay siyaasadda qaran ee isbeddelka cimilada 10 Sebtembar 2020 yaan sidoo kale diyaarinay oon horgeynay golaha wasiirada oo ay ansixiyeen. sidoo kaleeto agaasiga deegaanka isbeddelka cimilada wuxuu diyaariyey siyaasadda qaran ee kaymaha oo ognahay hadda dalkeena kaymihiisa aaday u yar yihiin ama maba lama arkaba badana hadda way iska burbureen. siyaasadda qaran ee kaymaha waa in la sameeyo kaymo waaweyn maxaa la yidhaha sidii hore ay u lahaan jirtay seerooyin xiran oo ay duurjoogtuna ku nooshahay. maxaa la yidhaahdaay kaymahaas waxay sidoo kale ay sababaan maxaa la yidhaahdaay inuu roobku soo degdego ilaahay idinkiis, duurjoogtuna ay ugu noolaato si nabada. sidoo kaleeto waxaan sameynay dejinta qorshaha wacyigelinta deegaanka. sidoo kale waxaan u baahannahay bulshadeena maadaama burbur xoog badan uu dowladnimada gaartay 30 sano lasoo dhaafayna qof walba jaantaar rogan ay ahayd oo isaga wuxuu doona sameynay in horta bulshada la wacyigeliyo. dadka ugu badanna ee joogana waxay dhasheen wixii burburkaasi ka dambeeyey iyo waa in kusoo caqliyeysatay. marka maadaama 75% aan dhalinyaro nahay waxaan xoogga saari doonaa wacyigelinta inagoo adeegsan doona maxaa la yidhaahdaay hay-adaha iyo organizationska local ha ahaadaan ama maxaa la yidhaahdaay sidaan oo kaleeto tiimamkan oo kaleeto ardayda maxaa la yidhaahdaay hooyooyinka Soomaaliyeed dhammaan abwaanada in laga wada qayb qaato, media laga wada qayb qaato wacyigelintaas hadduu ilaahay yidhaahdo. waxaan rabaa marka inaan ifraax weydiiyo waa maxay imkaaniyaadka loo baahan yahay in arrintaasi wax looga qabto. mase haysanaa imkaaniyaad aan wax kaga qaban karno dhibaatooyinka ku dhacaya deegaanka? markaan usoo ka hadlo qodobkan oo ah xalalka loo baahan yahay sida looga hortagi karo baabi'inta bii'ada Soomaaliya. xalalka ugu badan laga gaari karo ama loo baahan yahay in la sameeyo waxay tahay horta marka ugu horeysa in la joojiyo saameynta ugu weyn oo wadankeena haysta maadaama ay tahay deforestationka, in la joojiyo deforestationka oo la sameeyo maxaa lahaa waxyaabo looga badbaadi karo in dadka ay jaraan dhirta. dadka laba dhinac bay noqon kartaa inay baahi u geysay inay dhirta jaraan oo ay sababayso inay macnaha cunto ka samaystaan amba guryo ka dhistaan amba wax baahidooda ay ku dabaqaan. waxaa kaloo dhici karto inay dadka maxaa lahaayay sii dhoofiyaan ee dhuxul ka dhigaan ee ganacsi ahaan u isticmaalaan. waxaan bogaadinayaa marka aan leeyahay xalka ugu weyn oo laga gaari karo in baaba deegaanka loo geysanayo ee tahay mid ugu horeysa in la joojiyo deforestationka oo dhibaato weyn ku haya wadankeena. sida hore oo sharciyada hore oo wadankeena u degsanaan waxay ahayd qofka hadduu si baahi u geysto inuu geed jaro inuu geed beero. marka waxaan dhihi lahaa sida sharci hore in la soo celiyo oo qofka markuu baahi u qabo inuu geed jaro si oo uu sameeyo alwaax uu sameysto ama yeeshay dhuxul uu sameeyo oo baahida bini'aadamka soo u kaafiyo u baahdo. marka waxaan dhihi lahaa in geedka haddii la jaro geed la beero. dhanka kalena waxaan ku bogaadin lahaa in baahida loo qabo in geed la jaro oo ay tahay in dhuxul laga shito in la iska daayo oo loo hormaro teknolojiyal ahaan oo loo hormaro oo la isticmaalo gaaska oo isagana waxyaabo badan wax yar oo hadda saaid ugu bilaabana wadankeena qaasatan gobolka Banaadir. waxaan kaloo ku bogaadinayaa in laga hortago maxaa lahaa in dawlad ay soo saarto sharciyo ku saabsan sidii looga hortagi lahaa xaalufinta ama burburka loo geysanayo bii'adaas.
mid kale oo saddexaad ku dar lahaa waxay tahay in dadka education aqoon la siiyo oo la baro in deegaanka faa'iido noo leeyahay oo deegaanka hadduu caafimaad qabo oo deegaan fiican oo nadaafad leh hadduu yahay bilaadan nadaafad leh caafimaad qabo inuu kasoo dhalanayo oo nolol ka helayo haddii deegaanka dhibaato loo geysto oo wasaq lagu shubo oo sun lagu daadiyo ee ka dhalanayso in bilaadanka caafimaad darro soo wajahdo biyo wasaq ay ka dhashtaan noloshina ay noqoto nolol oo khatar ee xayawaanadii meesha ku nool ama duurjoogta meesha ku noolaan ee iskaga haajiraan ama qaarkood ee noqdaan kuwa oo ka haajiro meeshaas su-aasha kale raba adoo aan ka bixin waa maxay ururada bulshada rayidka doorka ama kaalinta kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa xaalufinta ama dhibaateynta deegaanka doorkay ku leeyihiin ururada bulshada rayidka masalada doori ku leeyihiin si fiican waa ku leeyihiin waxaan isleeyahay waxa kaliya sameyn karaan bulshada waxay tahay inay wacyi geliyaan because iyaga dawlad ma aha sharci ma soo deji karaan dadkana sharciga ma ku qasbi karaan ma dhihi karaan sharcigaas samee hadaa samey waysan ganaax ma kusoo rogi karaan bulshada wax kaliya ee sameyn karaan waxay tahay in maxaa la dadka wacyigelin ay u sameeyaan ee dhahaan macnaha yareeno deegaankeena nadaafadiisa aan ka fikirno qashinka aan ku shubno wadooyinka dhibaatada wadan deegaankeena saameynta ugu muhiimsan u maanayso aan ka fikirno waxay kaloo sameyn karaan bulshada waxay tahay in maxaa la dhahaa waxyaabaha baahida weyn ee u qabin oo kale inay ka yaraan sida hadda plastics oo kale isticmaalkooda single plastics kuwa loo yaqaan ee yar la isticmaalo waxay deegaanka saameyn weyn u leeyihiin marka waxaan dhihi lahaa maamooyinka oo guryaha joogo kaleeto inay isticmaalaan waxyaabihii hore oo dhaqanka u laheenay oo suuq loogu soo adeegi jiray sida salada oo kaleeto oo ka samaysneed geed ka samaysneed ama midii marada ka samaysneed oo kale in lagu soo adeegto qaasatan bulshadan waxaan dhihi lahaa dhammaantoodaba inay iska yareen waxyaabaha single plasticska oo strawberryga ugu horeeya oo caadada biyaha ah iyo bacaha lagu soo adeeganayo in la iska yaro taas waxay saameyn u keysan kartaa deegaankeena mid kale isla waxay tahay dadka baahida u qabaan inay yareeyaan hal qof walba inuu hal gaari wado taas saameyn weyn ee ku leeyahay deegaankeena waxaa fiican bedelkeeda in la isticmaalo public transportation kuwa loo yaqaan oo bulshada dhan ay raaci karto basaska oo kale in la isticmaalo dhanka kale waxaan bogaadinayaa in dadka meelaha fog aan rabin inay baabuur soo bataan ay soo qaataan waxaa ka fiican inay lugeeyaan ama meesha ay u dhawda lugeeyaan ama maxaa la isticmaalaan baaskiilka oo kale isaga ma isticmaala shidaal hawadana uu naga wasaqeynayo dhibaatana ma noo geysanayo marka taas ku bogaadinaa ifraax aad u maasantahay waxaan rabaa inaan maxamed daahir aan weydiiyo arrinta ku saabsan maxamed maxay tahay talada aad la wadaagaysid bulshada Soomaaliyeed oo ku saabsan sidee wax looga qabtaa arrinta ku saabsan waxyeeleynta deegaanka maadaama aad tahay agaasinkii isbeddelka cimilada iyo hagaajinta deegaanka kusoo dhow maxamed daahir cabdiraxmaan aad u mahadsan tahay waxaan isleeyahay dhammaanteen waa wada jecelnahay meel qurux badan africa anaga hadda afrikaana nahay africa caasimadda ugu nadiifsan waa Kigali kaliya kuma imaanin fulin dowladeed oo kaliya waxaa sidoo kale ku jira isxilqaan bulsho waxaa la rabaa marka aniga aan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisu jooga haddana dhalinyaro ah oo wax bartay inaan horta nafteyda ka bilaabo inaan joojiyo saameynta taban ee ani aan ku leeyahay deegaanka oo ay ugu horeyso hadda waxaana hor yaallaa caaggan yarkee biyaha haddii caaggan yarkee biyaha marka aan cabo oo aan biyaha ka dhammaysto aniga wax faa'iidaa iima laho wax faa'iidaa iima laha marka waxaan sameynayaa inaan inta furkiisa isaga xiro waaba haddii aan furka ku xiri karo aan tuuro haddii kale furkiina aan gooni u tuuro isagina aan gooni u tuuro dadka kale iska dhaa inteenaan haddii aan maanta caagadahan wada qaadano bannaanka aan la aadno oon isgoyskan shaqaalaha ilaa iyo kan kale aan ku tuuro sidee u ekaanaya laamigan cid kale iska dhaaf inteenaan keliya markay ugu yaraato 50-60 caagadood aan waxaan ku daadinay halkan
waxaa lisleeyahay war maanta maxaa dhacay meeshaan baabuur caagadahoodaa ku gadoomay mana ahaa shaksi aan u sababnay marka haddii tusaalaha kale haddii inteenaan intaan baxno aan ka bilowno laamigan shaqaalaha ilaa iyo laamigaas kale oo mid walba waxa ugu yara uu qaadi karo wasaqi laamiga taala uu qaado ama bac ha ahaato ama caag ha ahaato marka aan halkaan ka bilowno halkaas kale aan tagno waxaa la dareemayaa nadaafada laga dareemayaa laamigan annagii yaa mar wasakhaynay waddadii isla annagii ayaa haddana bilicdii usoo celinoo nadiifinay marka dalka waxa uu nadaafadiisa iyo deegaankaba lagu ilaalin karaa waa isxilqaan horta bulsho dowladdu waa sax waa laga rabaa inay shuruucdii dhaqan gelisaa laga rabaa maxaa la yidhaahdaa inay nadaafadii ku dadaashaa laga rabaa dadka ka shaqaynaya inay lacag siisaa la rabaa dad inay u heshaa la rabaa waa sax laakiin dadkaas ta laga keenaya dalalka lagama keenayo waa isla annaga waxaan rabnaa marka annaga horta inaan iska bilowno qof walba nafsadiisu inuu ka bilaabo ama gaari wado ama luge maanta laga bilaabo saacaddan laga bilaabo in qof walba aan ugu horeeya aniga nafsadeyda ka bilaabaa in uu ka ilaaliyo deegaanka saameynta taban ee uu deegaanka ku leeyahay keliya nafsadaada horta ka bilow inaad deegaanka wasakhayn waxaa arki doontaa bulshada kaloo kugu dayan doonta waxaa laga yaabaa saaxiibka ama walaasha ama walaalka inuusan halkaan joogin laakiin hadduu ku arka 2 maalmood adigoo isku caaganta biyo ku caagadi qaadaya meel qashin la raadinaya berri dhaqankaaga ku dayanaa marka uu tuuro haddii aad ka celiso oo xataa aad dhihi war maxaa u tuura laakiin aad qaado ficliyan inta soo qaado aad geyso meesha qashin ku rido wuu isweydiina war adigu waa tuurtay ninkaan muxuu u qaaday maxaa sababay wuu ku weydiinaa war adigu wuxuu ku leeyahay war adigu meesha ma lacag lagugu siiya maya waxaa leedahay waa isxilqaan hadda aniga aan deegaankayga aan nadiifsanin yaa i nadiifinaya qof kaloo dibadda ka yimaada i nadiifinaya waa may waxaana laga rabaa marka inaan annaga horta kow iska bilowno bulshada kalena aan ku wacyigelino inteenaan maanta laga bilaabo waxaan nahay safiiro ilaalinta deegaanka nin walba waxaa laga rabaa meel institutionka uu joogo ka shaqeeyo gurigiisa asxaabtiisa dariskiisa meel walba inuu ku yiraahdo inuu ficliyan u geeyo sheegis macna ma sameynayso ani maanta halkan waa ka sheegi karaa ustaad cabdiraxmaan wuu ka sheegi karaa walaashaan waa ka sheegi kartaa laakiin sheegis macna ma sameynayso ficilaa u baahannahay inaan ficliyan ugu dhaqaaqno aanan tuurin meesha qashinka aan ku ridno taas horta waa midda koowaad ee aan rabno inaan lambar 2 ana agaasin ahaan waxaan sameynay jarista dhuxusha si loo yareeyo in la helo maxaa badiil u ah dadkan dhuxusha jaraaya maxaa la yidhahdaa keenaya maxaa badiil u ah kow waxaan sameynay burjikooyinka dhuxusha yareeya aada u beeqaamiya laba dhuxul oo kale in la geliyo oo maalin iyo 2 maalin ku moodo halkii la isticmaali lahaa maxaa la yidhahdaa 4 jeer 5 jeer oo baco dhuxula la isticmaali lahaa in maxaa la yidhahdaa kadib waa kasii gudubnaa waxaan sameynay in LPG la qaybiyo gobolada Soomaaliya maxaa la yidhaahdaa inta maamul goboleedyada ka jirta Soomaaliya dhammaan waa gaarsiinay waxaan gaarsiinay in LPG kuukarka iyo gaaskiisa la geeyo oo reero loo qaybiyo waxaa waaye waa kuukarka iyo gaaska waxaan maleynayaa walaasha iga aqoon badan marka la yidhaahdo karinta laakiin waa maxaa la yidhaahdaa kuukarka oo wax lagu kariyo iyo gaaskiisa in la qaybiyo dhammaan gobolada waa la gaarsiiyey laakiin shaksi looma gaarsiinin laakiin sambalaa la gaarsiiyey oo ah war maxaa la yidhaahdaa waa arkane ha la arko sidoo kaleeto shirkadaha gaaskaan la fadhiisanay waxaan kala hadalnay inay yareeyaan annagana aan kula dagaalano in canshuur dhimis xooggan lagula sameeyo waa isku afgaranay lafteeda in maxaa la yidhaahdaa ay ayagana qaabkaas ay maxaa la yidhaahdaa ay kula shaqeeyaan sidoo kaleeto sharciga lafteedu maxaa la yidhaahdaa in la dhaqan geliyo baarlamaanka sugaa hadduu baarlamaanka ansixiyo waa maxaa la yidhaahdaa waa la dhaqan gelinaa hadduu ilaah yidhaahdo marka intaasaan kusoo koobaa iyo ifraax aad ay u mahadsan yihiin ifraax nuur cali oo aqoon-yahanad dhinaca deegaanka ku takhasustay waxaan galabta ku faraxsanahay in ay nala fadhido ifraax oo gabar aqoon-yahanad ah waxaan marka galabta rajaynaya gabdhaha inay doodan si weyn uga qayb galaan hadday ay doodihii hore xoogaa xishoonayeen hadda waatan aqoon-yahanadu way sidai u kala dhigtay oo ay u fasirtay
waxa saameynta uu ku leeyahay deegaanka dhibaatada ku dhacda waa arkaysay marka waxaan rajaynayaa in dooda si weyn aad uga qayb geli doontaan gabdhaha waxaan rabaa aniga gabdhaheena inay noqdaan gabdho wax bartay waxaan rabaa gabdhaheena inay noqdaan gabdho ka doodi kara waxa laga hadlaya waxa waa masiirkiinni idinkaa weliba dadka ugu badan oo ay saameynta ku yeelanaysa marka gabdhuhu waa inay doodaha ka qayb galaan waa inay bartaan waa inay xuquuqdooda u doodi karaan waa inay ka doodi karaan yani qodobada kala duwan ee hadda madasha wada hadalka ay hadda maaragtay maalin walba waxay keentaa qodob ka mid ah saameyn ku leh masiirka ummadda Soomaaliyeed waad ogeedeen tii hore waxaan kaga hadalnay federaalka waxaan kaga hadalnay tii kasii horeysay abaaraha maanta waxaan kaga hadlaynaa deegaanka iyo isbedelka cimilada marka waan rajaynaa gabdhaha inay ay ku daydaan oo ay u noqoto tusaale oo iyagana ay dooda qayb ka qaataan laakiin hadday iska noqoto wax ishoona ma hadli kari oo meesha iska fadhidid waxa markaasi waxa waaye waxaad noqonaysaa qof aan xisaabta ku jirin marka isku daya inaad doodaan ceeb maaha dooda maaragtay ka hadla qaybteena ka qaata dalka muhiima u tihiin hadda waatan gabadheena ifraax nuur cali waxay baratay environmentiga waa muhiim aad ugu faraxsanahay in jaamacadaha xataa laga bilaabay aqoonta ku saabsan deegaanka in la barto wax muhiim ah deegaanku annaka ku nool waa loo baahan yahay adduunkana maanta waxa wax walba dal walba wuxuu ku xisaabtamaa deegaankiisa inuu nadiif yahay wuxuu ku xisaabtamaa deegaankiisa in aanay maaragtay cimilooyinkan iyo dhibaatooyinkan gaarayso laga hortago waxaasoo dhan marka waxaa loo baahan yahay in sida uu sheegay aad aan uga mahadcelinaa maxamed daahir oo isagana runtii xafiiska ra-iisul wasaaraha u qaabilsan deegaanka dayb fiican hadda maaragtay si wanaagsan u dhigay marka sida baaqa uu u sameeyey maxamedna aan isku xilqaano qof kastoo annaga naga mid ah adduunka markaa aragtid waxaad arkaysaa dadka deegaanka iskale ma ogolaanayaan inaad xaashi yar intaasaa u qabato oo aad dhulka ku tuurto waa soo qaadaysaa waa kaa daba keenaysaa baabuur xataa hadday aad saaran tahay baabuurkay kaa soo daba qaadanaysaa baabuurkay kugu keenaysaa markaas kugu ridaysaa meesha waxay ku leedahay ku rid meesha oo loogu talagalay sababta waxay ilaashanaysaa deegaankeeda deegaankeena marka idinka iskale haddana waad aragteen deegaanada meel walba qashina daadsan qashinkii guriga laga soo bixina waxaa lagu daadinayaa wadadii biyihii wasaqdii waxaa laga soo saarayaa kushiinkii waxaa lagu daadinayaa laamigii waxaas marka waxay saameynayaan hadda waxaad aragteen cudurrada Soomaaliya inay aad u fara badan yihiin waxa keenayna waxa waa wasaqdii oo wax laga qabanay wasaqdii oo dadkii aan ka wada shaqeynin marka waan rajaynaa doodeena maanta inay noqoto dood muhiim u ah isla markaasina ficil u rogta baahida loo qabo in deegaanka la badbaadiyo markan waxa iska leh dadweynaha oo doodu aan xaggeena u soo dhigi doono waxaan rabnaa in qofka oo doodaya gacanta taago magaciisa u sheego marka kadibna uu dooda u gudbo waxaan codsanaynaa in inta la soo istaago si oo qofka markaas waxaa jooga cabdirashiid oo khabiir dhinaca deegaanka oo isla xafiiska ah cabdirashiid waxaad ku dari kartaa adna inta aan loo gudbin hadduu ilaahay ilaahdo dadweynaha runtii waan kaga mahad celinayaa qabanqaabada barnaamijkan quruxda badan sidoo kale waan mahad celinayaa marti sharafta kasoo qayb gashay kulankan iyo banaliska ifraax iyo agaasime maxamed daahir iyo xiriiryaha sidoo kale bahda saxaafadda intii la sheegi lahay runtii waa la sheegay oo maxamed daahir iyo ifraax agaasimaha ayaa haylaad gareeyey environment marka ka hadalno waa wax kasta oo saameyn nagu leh hadday tahay hawadii hadday tahay ciiddii oo aan ku noolnahay iyo biyaha oo nagu hareereysan badihii webiyadii waxaas dhan ka mid ah marka saddexdaas environment ayaan u dhaxaynaa oo biosphere ayaa ku noolnahay marka waxaa la yidhahdaa dadka iyo deegaanka marka la leeyahay waxaa ka dhexaysaa saddex falgal oo dadkii deegaanka ayay saameeyaan deegaankuna dadka ayuu saameeyaan macnaha waxaa ka fiiriyaan dhinaca waxyeelada sidoo kale labadoodana waxaa ka dhexey kara xiriir saaxiibtinimo dadku markay deegaankii wasaqeeyaan dhirta la jaro ayadoo ganacsi loo dan leeyahay la samaysto warshado ayadoo la rabo hooy magaaliin la sameeyo ayadoo la rabo macdan la sameeyo maaragtay sheeg lala soo baxo maaragtay sheeg macdantii iyo shidaalkii intaas deegaanka way waxyeelay kartaa macnaha marka hadlaayo deegaankii dhaqaale laga helayaa taas waa dhinaca kale laakiin deegaankii asna maxaa ka imaanaya deegaanka waxaa ka timaado falaadhisaa ka imaado daadadaa ka imaado
abaaraa ka jirto ka imaanayso waxaa ka imaanayo wax la yidhaahdo maarata sheeg dhulgariira ka imaanayo baddii ayaa soo kacaysa waxaasoo dhan waa waxyaabaha ka imaanaya deegaankii dadkii deegaanka marka say ku saaxiibi karaan marka hadda dhir abuurno waxaa waaye deegaankii maxaa ka helaynaa hawo fiican qabow cunto dhir ayaa ka soo baxaysa dhirtana waxaa la yidhahdaa waa dhammaan cuntada noolaha kale haddii dhirta la baabiyo maadaama ay tahay producer consumerka waxba weynaya wax oo maarata sheek faamina ku dhacayo waa deegaankiisii wuxuu noqonayaa sida hadda laga hadlayay tayadhac ayaa ku dhacayo tayadhac ama land degradation kadib markii meeshii la xaalufiyo dadkii way soo qaxayaan hadda 2.2 milyan oo IDPs ayaa magaalooyinka degan ama hareeraha magaalooyinka 3.6 milyan waxa waaye way barakaceen marka maxay ku barakaceen waxay ku barakaceen tayadhac ku dhulkoodii macnaha oo abaar waxyeelada deegaankana Soomaalidu waa waxa ayagu ay si negligence u sameeyay waxay u saariyaan Ilaahay u saariyaan macnaha waxaan waa dhibaato dadku gacantooda ay ku sababeen macnaha فبما كسب أيديكم معناه بيعفو عن كثير حتى قار كلا اللي عافية معناه وحكلا دعي لهاي مركب وحيابها صدّن وحيابها ديجان كينيكا مركب وحيابها كدرة وحكي مذا صومالي استشكت أجاسمها دلالة بدنا يسمى أجاسك ديجان ك سياسة بدنا للسمي صدق الصومالي وحكي متها الدوية كمتها أنت أو شر أو حاجرته إلا لواتين لو conventions أو international agreements أو Somalia قابكت وهو وين هشيس كله يقانو إسبدل كعملة UNFCCC United Nations Convention for framework for climate change UNFCCC وهذا كدعي جلسكو Somalia مركي قابكت معنا باريس agreements وقتين معنا إن 2015 كي عن قاب كأهن وعن كسوق عني بلمه ballantaasna waxaa kamid ah in Soomaaliya ay contribution ka sameeyso macna haday tahay isbedelka cimilada waxyaaba sameeyay ka yimaadaan waxay ka yimaadaan beerihi waxay ka yimaadaan xoolihi qashinka waxay ka yimaadaan soo kale transportationka energy-ga intaas oo dhan waxba ka soo baxay emissions ka soo baxay waxa sida lagu yareelahay markii waxa laga qoray maartay sheeg kitaabo weyn laga qoray oo dadaal oo balaanis oo Soomaaliya waxay ku bixinaysaa isbedelka cimilada 55 bilyan ma aha milyan macna 55 bilyan ay ku bixinaysaa waxa la yiraahdo NDC oo lagu soo balqaaday Paris Agreements Kyoto Protocol waxa ka horeeyay sidoo kale waxa jirta maartay sheeg heshiiska loo yaqaano UNCBD ama United Nations Convention for Biological Diversity adduunyada waxa si yaraanayo waxyaabihii maartay sheeg noolihii kala duwanaa saasoo ay tahay Soomaaliya waxa soo gashay dhirta loo yaqaan diasporada ayaa soo gashay macnaha FCF taasoo deegaankii waxyeeleysay hadda waxa ogtihiin hay'adaha qaarkood waxa ku eedeynaa inay cunto keeni jireen hadda cuntadii way iska dhaafeen dhir waxa la keenay ciidii baabiinayso markii la beero waxba ka soo bixi maayaan land degradation ayaa meeshii ku dhacay oo dhirtii carradii waxa ku dhacay infertility baldaliisay noqoto macnaha marka taas waxa kaga degan adduunkii heshiiska loo yaqaan UNCCD ama United Nations for Combat for Desertification marka desertification in la dagaalamo dadku ma fahmayaan desertification laakiin desertification ka ama dhulka inuu noqdo saxaro way socotaa macnaha aad bay u socotaa oo arkaysa hadda dhulka Soomaaliya dhammaan uu banaaya marka dhulkii la baneeyo oo barnes noqdo macnaha dhul aan dhir lahayn wuxuu isku bedelayaa desert infant bacteria meesha ka dhamaanaysa maxay la bacteria deegaanka ay qayb ka tahay oo maartay sheeg ecosystemkii ay qayb ka tahay deegaanku waa qayb nool iyo qayb aan nooleen marka ciid ma noola hawadu ma noola biyo ma noola laakiin dhirta iyo dadku way nool yihiin marka biotic iyo macnaha ma noolaha iyo noolaha labada xiriir ayaa ka dhaxeeya way isku baahan marka intaas ay waaweyn sidoo kale midkii lagu ilaalinayo maartay sheeg hawadii inaan waxa lagu sii deyn hadda qolkan waxa qabowsanayna oo aan ECA loo isticmaalina taas xataa dawladda Soomaaliya kale waxay sameeyay agaasiga deegaanka kale agaasimaha waa kulay waa sheegi doonaa Soomaaliya waxay mamnuucday in shidaal
qaboojiyaasha gaariga ama maaragtay sheeg furniture-ka ama AC-da aan Soomaaliya la keenin maxaa yeelay ilaa 76 ayaa commitments amendments lagu sameeyay wax ka bedel tiknoolajiyada adduunka hadda wuxuu ku fikirayaa tiknoolajiyad oo environmental friendly ah in la keeno maxaa yeelay Soomaaliya waxa ogtihiin waa big dam Africa waxay tahay big dam maxaa yeelay Africa electronic badan soo galay e-waste ma lagu baraarugsan hadda intaan isticmaalno waa 6 bilood kadib microphone wala tuuraya computer ka bedelaysa sidoo kale mobileska waxay isku bedelayaan maartay sheeg e-waste marka e-waste waxa la yiraahdaa iyo nuclear waste-ga hadda maanta waxa arkay report sheegaya 2 kilomitir garoonka waxa taalo haan oo sun ku jirta macnaha marka waxyaabahaas waxa la yiraahdaa waa modern environmental threats macnaha waa qatar cusub deegaanka ku soo wajahda timid marka waxa loo baahan yahay baraarug ma laga bilaabayo enforcement iyo macnaha meeshaana wax ku daadisay oo arkaysa waxa way laamigan habeenkii markii qofku ugu dambeeyo dukaanka xiraayo ayuu biyaha soo qaadaya laamiga soo dhinacyada fiirinayo ku daadinaya marka dadku muwaadin maahan muwaadin qofku waxa ka dhigaya sharciga macnaha qashinkiisa jeebka ayuu ku qaadanaya qof kastana 0.74 kilogram oo qashina ayuu macnaha sheeg oo ayuu maalintii deegaanku sii daaya marka 0.74 kilogram oo qashina adiga ayay maareyn ka rabtaa marka deegaanka hadii laga sheekeeyo ma laga sheekey karo Soomaaliya priors 1 2 3 info security waxa waaye waa dadka walaalaha meesha jooga haddana soo sheega magacayga ani aragsan bedel Ismaaciil baa leeyahay bi'ada waxaas uun ku malihi horta waxaan aad ugu mahad celinayaa wiilka maanta iigu baaqay meesha inaan imaado ma ahayn dadka yani aad u daneeya waxa yahay gabar Soomaaliyeed oo dhinaca shu'uunta siyaasadda Carabta iyo Soomaaliya af Carabi ku qorta dhinaca saxaafadda Carabta marka anigu hadda su'aal ma qabo laakiin waxaan qabaa comment maybe inuu su'aal lagala dhex bixi karo okay marka waxaan rabay su'aal walaalo agaasimaha qodobo badan buu ka hadlay anigu marka waxay yahay dadka aad u dhaliila يعني فائدتي أمبا حوجنتي لو جبنا دولة مسؤولية دي صارين أد وقف ستين عاص معلم دويد بشي كوباد سنة كان شنو لباتين كيني سيد الأولي هو وزير كعريمة هدي بدأ وزير كعريمة هدي بدأ وحى وصحيحي وقعد سنة سلطنة عمان أني سيد يسوع مركب صارنيد أشجار فحم وسيبي جلا لوجلين تلقاسي oo isaguna uma dhaweyd ka dhawaaqinayay ina ay dawladdu waxyaalahaas ka soo horjeedo waxyaalahaasna la dagaaltamayso tii hore wayna dhaaftay oo okay arrintaas way socotaa weli maalisteedii iyo sida ay ugu dhaceen waxaan hayaa warqadii wasaaradda arrimaha dibadda ka baxday iyada lafteeda ku socotaa baalista marka iyada yani anku hadda ma aragta anku aan deegayn ama wasiirkii inaan eedayo ama just aniga imika muwaadin baa yahay Soomaaliyeed I think xor baa u yahay inaan raygayga ka dhibto ma fahantay meesha wax kamid ma joogno fadho way aniga just raygayga ka dhibinaya adoo mahadsan qodobka waxaan uga jeeday oo kaliya u soo qaatay maanta anigu ma yihi qof maxkamad saaraysa wasiir hore u tagay laakiin waxaan rabaa inaan muujiyo inuu mas'uuliyadu bi'ada marka laga hadlayo laba qaybood bay u qaybsamaysaa mid waxa laga rabaa soo maaha in dawladdu ay xoog saarto ay samayso baladiyo ay samayso meelihii uskaga dadkii u shaqeynayay qashinka qaadayay bulshadu hadayna wali ku baraarugin inay isxilqaamaan waxa looga baahnaa dawladdu inay la timaado inay wax la tiraado yani ay saarto caashuur amba wax lagu qaraamadeeyo haday dadku ay ka soo bixi waayaan waajibkooda because bulshadu marna waa dad isxilqaamaysa marna waa dad maxaa ahayd u baahan in la wado oo la tayo طبعا comment ka ku dirsanay wait please walaalo maadsan just intaas are okay just intaas are bina ku biiriyo sabab intaas qodobka aan sheegayay waxaan u soo qaatay anigu muqdisho markaan hadda imiday waxaan arkay dadka dhalinyarka kama hadlayo ee duruufta u asmixlaada meel wanaagsan iyo deegaan waxaan aqaana dad degan cimaaradahan hadda caadiga loo dhisay ee bildigyada cusub laakiin waxay sameynayaan dadkii
qof walba bas intay lacag iska ururiyaan iskuma dayaan xataa inay baash qashin weyn ay soo gataan oo qashin lagu tuuro waxaa la samaynayaa balakoonka yaa lagu soo wada tuurayaa marka taas oo kale I think dawladdu waxay kaga qaban kartaa inay dadka qaraamad ku abuurto waa la mahadsantiin Professor Dinari Ifrah iyo Mohamed iyo walaalaha kale ee madasha ka soo qayb galay waa assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh Ifrah ma iloobin ku daray marka waxaan rabaa inaan laba su'aalood yar yar من إفراح ويديو من محمد ويديو قلت دباتين تمارتي ديجان كواوه مارتي دباتوين مقطع أو شروي أو ودن كمارتي دباتهم مقطع كله قاب كنا مارين يرا أو بحن قفكو إنه أدلوج يعني دباتوين كمارتي شراء كذي كشراء مركب هذا حرامنا ويديو ولا هو بدل بالشدة لقيت هي وحكم إذا واحد برشة maadaama dee aada tihiin boolisiyo badan aada dejiseen oo ku saabsan maaragtay dhibaatooyinka deegaanka in laga hortago aragti waxbarasho oo ku salaysan macnaha basically ku salaysan in macnaha Soomaali ahaan qofka muwaadinka laga soo dhiso waxbarashadii loogu soo sheego in maaragtay dhibaatooyinka ay bulshada deegaanka u geysan karto ma jira aragti macnaha oo waxbarasho oo maanta iskuulada ama dalka ama manhajka dalka ku jirta oo ku salaysan dhibaatada xaalufunta deegaanka ama dhibaatada bey'ada oo arrintaas wax ka qabateen su-aasha kale oo Ifraax haweenaa weydiiyey waxay tahay aniga waxaan arkay hadda maanta markaad tariidisha tagtid waxaad u tegaysaa dad badan oo Soomaaliyeed oo barakaca magaalo walba oo weyn oo Soomaaliyeed sidaas oo kale dad barakaca jooga hadda ka hor waxaan iswareysanay nin tariidisha jooga oo ka soo baxay gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu ii sheegay inuu weliga jiimkiisa ku leeyahay beer weyn oo aseentay dhahaan halkaana uu xoogto ku yahay hataa suuli u faysan oo buushuu degan yahay waxaan rabaa Ifraax inaan weydiiyo maxay tahay sababta kalifaysa qof dhan oo beer aseenta ah oo kanaal leh oo weliga jiimkiisa ku lahaa sababta uu qaxoonti usoo doorbidayo oo magaalada dushooda imaanayo oo meelaha suulaan buushu ku jirayo marka waa maasantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعبد العزيز محمد إدريس شرف أي تايم أنت إننا كسوق قيب قالوا كلن كان أد مهم وبالشدة لو سألوا القواء أنيا سوش كواد وحيد هاي سده لو سمين كرا بالشدة سي وسمين ريفورستيشن أما ديبودرين إن سمين سلو ديرين قدي كرا بالشدة مد الواد وحيد هاي حد سلو هلي كرا بون هدي لو بدل كيس لو دي دad kan waxa ku baahiya ku qasbtay inay dhirta jaraan dhirta ugu weyn waxyaabo ugu weyn dad sameeyay dadkaysa uu sameeyay maxaa u qorshaysan dawladda inay sameyso inay soo saarto waxyaabaha kale natural resources ka oo uu gaas uu kamid yahay inkastoo isagana saameyn kale uu leeyahay laakiin xoog la saaray forestiga duurka ama xoog la saaray natural resources oo gaas uu leeyahay maxaa u qorshaysan in si ay u soo saartaan dadkana ay ugu faa'iidaan insha Allah dhammaantiin waan salaama Ifraaxa ugu horeysiyo iyo agaasimaha aniga waxa waay magacayga Cabdicasiis Ali Maxamuud aniga nin Pakistan wax ku soo barta ahay Ayoosh iyo Neebosh waxa soo qaatay safety and environment horta anaga environment ahaan wadankeena aad u liidana oo wacyigelin badan ma jirto sidaan hadda wadanka ka arkay waxyaabaha ugu yar oo agaasimaha weydiinaya waxa hal su'aal aan qabaa markuu roob noo da'o waxa jiro meelihii biyihii mari lahaa in bac ay xirto marka arintaas waa wax ugu yar aan qaban karno ilaan anaga awood badan ma leeyahay hadda wadankeena oo wax badan aan ku qabano marka arintaas aan weydii lahaa seexal looga gaarin bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waa Galla Jaamac Maxamuud waxa ka tirsanahay ardayda jaamacadda ummadda waxa bartaa department geology barnaamijkan qayb ayaa iga qosaysa marka aniga asxaabta waxa ku darsanaa comment barnaamijka wuxuu ku soo aaday waqti muhiim ah ayadoo waqti abaar ay jiraan dadka qaar waxa laga yaabaa abaaraha waxa sababay in ay dadku qayb ka yihiin abaaraha waxa sabab marka deegaanka xaalufinta deegaanka waxay qayb weyn ka qaadataa waxa la yiraahdo in roobku yaraado ama roobku gurabo sawaha ay ugu qaadata qaybta ay ugu qaadanaysa waxa kamid ah bubul okay sawaha waxa kamid ah warshadaha kale qiiqay sii deynayaan levelka carbon dioxide ka hawada u galaa marka hawadii qiiqii markii uu meeshan ku xirmo daruurihii iyo qaabkii waxay noqonayaa wax macnaha qiiqa ka xigo
sidoo kale populationka sida magaaleynta dadka haddan waa aragteen reer miyigii annaka soomaalida waxaa lagu qiyaasaa waa dad yacni lagu tilmaamaaba dad reer guuraaye annaka waagaa reer guuraaga ahaynay abaaru ma jirin waa yareed abaartu dadku waxay ku noolaayeen kuma noolayn waxaan kale waxay ku noolaayeen inta badan cad iyo caano soomaalida inta badan saasay ku nooleen deegaankaas inta ugu badan xilli waxaa lagu xisaabi jiray dayr iyo gu gobolladan koonfurana xagaayaga waa ka jira laakiin gobollada inta badan oo dhibaatadu ka soo gaara centralka iyo gobollada waqooyi kale iyo gobollo kale waxaa jira xagaaga la wadaago oo gobollada ku yaala dhulka sare marka oo yacni koonfurta la wadaagto marka dhibaatada ugu badan ee roob la-aanta keenaysa ee abaaraha keenaysa waa deegaanka oo la nadaab guuriyo ama la wasaqeeyo air pollutionka qayb uu ka yahay air pollutionka waxa sababi kara sida agaasimuhu sheegay sida ifraax sheegtay iyo sida la taliyo sheego kaleba baabuurta kale warshadaha tiknolojiyadda qudheeda saameyn nagu leedahay tiknolojiyadda soo korodhay adduunkana si u socdo asaga isdhamayna ugu dambeyn tiknolojiyaddu qayb weyn haddaan ku leedahay waa dareemi kartiin waxaan umaleynaa dalal isticmaala roob macmala ama si macmala roob u heli kara waxa arkaya baraha bulshada ka arkaya nin yiri roobka Soomaaliya waa la xal dad waxay dhahayeen waa waalay dadna waxay dhahayeen war cilmiga waxba ka jira laakiinse Soomaaliya roob lagama xadi karo sababta keenaysana ama roob lagama jiidi karo ama nidaamkaas lama mari karo sababta keenaysana sheena oo kale barnaamij uu isticmaala hindiyana way isticmaashaa in macnaha roob hoganay inay kala yaaciso ayada adeegsanaysa fallaaro marka tiknolojiyadu qudheeda saameynayna walaal marka anigu barnaamijka aan ku daraayo walaalahay maadaama qayb geologiga oo ka yahay deegaanka barnaamijka qaybta ugu weyn ee bulshada raba inay ku baraarugto roobka haddii la rabo waa in dhirta jiritaanka laga daayaa waa in air pollutionka la yareeyaa dowladdaana main boontigaas laga rabaa agaasimuhuna waa nagala joogaa aadaan u mahadsantihiin oo dowladda ay ka gaabisay ilaalinta oo ay walaashana weydiisay sidii la rabay looma qabanin xaqiiqo jirta waaye culaysyo badan oo jiray iyo agaasinka laftiisa oo maxaa la yidhaahdaa aan la mid ahayn maxaa la yidhaahdaa aan jirin waqti aada u badan iyo sharciyada lafteeda oo maxaa la yidhaahdaa baarlamaanka horyaala marka waxaan rajaynaynaa wacyigelinta in la xoojiyo haddaba waan wadnaa hadduu ilaah yidhaahdo idinkana aan nala qaadaan maxaa la yidhaahdaa sharciyada markii la ansixiyo hadduu ilaah yidhahdo baarlamaanka baasgareeyaan in maxaa la yidhaahdaa toos loo shaqogeliyo waaxda ilaalinta deegaanka xamar iyo guud ahaanba gobolada anaga guud ahaan waxaan ku shaqaynaynaa coordination iyo boolisiyada inaan dejinaan leenahay laakiin gacanta rasmiga ee shaqada qabanaysay waa gobolada dowladda hoose waa gobolka banaadir dowladda hoose uu leeyahay agaasim wuxuu leeyahay lafteeda oo environment oo biyo uu leeyahay oo deegaan uu leeyahay bilic soo celin uu leeyahay dhammaan hadduu ilaahay yidhaahdo waa kala shaqaynaynaa waana ku engage garaynaynaa culaysan ku saaraynaa in maxaa la yidhahdaa ilaaliyaan sida aan ugu saari doono dhammaan maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira marka waan qaadanay waxaan rabnaa adiga iyo tiimkaagana inaad nala qaadaan hadduu ilaah yidhahdo culayskaas oo aa qayb ka qaadataan wacyigelinta hadduu ilaah yidhahdo taxigta oo walaalkay cadaas curriculumka ama maxaa la yidhahdaa manhajka shirar badanaa ka gallay maxaa la yidhaahdaa laftooda jaamacadaha waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo in maado aan ka dhigno maxaa la yidhahda hadda waa wadnaa oo waa la qoray lafteeda in laga dhigo maado lagu qaato jaamacadda ama ugu yaraan dugsiga sare ilaa jaamacadda in la helo maado environmentia oo kulliyad walbo ardayga uu dhiganayo oo qaadan karo macnaha waajib ay ku tahay inuu qaato marka dagaalkeedu waa ku jirnaa waa la qoray nidaamkeedii hadduu ilaah yidhahdo inaan dhaqan gelino unbaa hadduu ilaah yidhahdo aa noo dhiman insha allah halkan ku daraayo waa bolisiga plastic bacda walaalkeed waxaan qoraynaa hadda plastic policy aan qoraynaa ama sharcigii xakameyn lahaa bacda hadduu ilaah yidhaahdo sidii haddaad walaashii ka dhawaajisayba dhibaato badanuu ku haya alternative-kan waa in dib loo soo celiyaa loo engage gareeyaa ama lagu dhiirigeliyaa maamooyinka samayn jiray dambiisha saladaha
maxaa la yihahdaa marada ama qasabka ka samayn jiray hadduu ilaah yihahdo lafteedu waan systemkaasna wuu socdaa bolisigaas markii la ansixiyana waa dhaqan gelin doonaa hadduu ilaah yihahdo bac ma soo saarno annaga banaanku nooga yimaada marka hadduu ilaah yihahdo in la joojiyo insha allah taas ka shaqeyn doona hadduu ilaah yihahdo sidee dib loo soo celin karaa forestigii oo la jaray dib loo soo celin karaa ama loo samayn karaa deforestation waxaan dhihi karaa deforestationka horta in la burburiyo way fududahay laakiin in waxa dib loo celiyo oo sidii markii hore ahaa in dib loo soo celiyo way adagta waa hawl adag marka waxaa is leeyahay haddii dowladda ka gacan weyn geysato wadanka si dib soo celiyo forestigii lumay dib loo soo celin lahaa waxay qaadanaysaa economic badan ay qaadanaysaa dhaqaale badan ku baxaayo waxaa kaloo ku baxaayo maxaa la time ay qaadanaysaa in reforestation markaas dib loo soo celiyo forestigii lumay marka waxaan dhihi karaa waxay u baahan tahay waqti iyo dhaqaale in la geliyo dadkana in la baro si aysan mar labaad u jaran geedka hadday jaraan bedelkiisa geed beeraan marka intaas kusoo kooba su-aashaada gobollada dalka waa ka sameynay sidoo kale waxaa noo qorshay siduu ilaah yihahdo sanadkan in la gaaro in la maxaa la yihahdaa lafteedu waan ka sameynay meelo kala duwan oo magaalada ka mid a inkastoo aysan bureyn sida oo arki kartaan tiyaatarka oo kaleeto maxaa la yihahdaa xarunta murtida madadaalada maxaa la yihahdaa maktabadda qaranka matxafka qaranka daljirka dahsoon maxaa la yihahdaa baarlamaanka hore isbartiibada intaas waa ka sameyn laakiin kuma filna hadduu ilaah yihahdo qorshaha sanadkan waxaa ku jirto 1 milyan geed in la beero 1 milyan oo geed in la beero hadduu ilaah yihahdo qorshaheeduna waa wadnaa hadduu ilaah yihahdo waana ka qayb qaadan doontaan hadduu ilaah yihahdo in beerista maxaa la yihahdaa dhirtaas insha allah waxaa lahaa laydhaa cabdirsaam al cabdi waan salaamayaa dhammaan asxaabta maxamed daahir iyo cabdiraxmaan dinaari iyo asxaabta hore ku xirnaa ayaan ka mid ahay iyo walaasha ifraax barnaamijkan xagga deegaanka laga hadlayana aad iyo aad baan u danaynayay anigana inta badan waa bara ayaan ahay macallin oo yani deegaankaas aad uguma shaqaynin laakiin haddana wixii aan maaragtay usoo joogay yaan raba inaan bal ku dara duleere su-aal haddama qabo tala bixin iyo wixii saas kale ma sheegi insha allah duleere marka wax badan waa la sheegay oo aad iyo aad khayr laa siiyo walaalaheen way noo sheegeen hal iyo laba unbaa is leeyahay aad kusii darta duleere deegaanka waxaa ka mid ah baabi-intiisa tusaale ahaan oo kaleento geed waxaa jira oo soomaalida u taqaan caligaroon ama keliis noole geed la dhaho geedkaas waagi hore waxaan maqlay kolley dowladda siyaad bare in bacad celin loogu talagalay wasaaradda dhirta ay keentay marka geedkaas aad buu u saameeyey beled iyo baadiyeba marka in la yareeyo oo kaleto geedkaas waa muhiim waxyaalaha waxaa kaloo ka mid deegaanmiinta ama tusaalahaan waxaad arkaysaa dhul fara badan oo goof intaa laga dhigay haddana la xaaqay dhulkii aan la degaynin xoolihii aanay daaqaynin marka baadiyaha weliba haddaad tirto waxaad arkaysaa dhulku waa goof goof marka deegaamayntaas aan waxba aan micno aan lahayn ee dhulka lagu xaalifinayo in iyadana la yareeyo aad muhiim u tahay waxaa kaloo lamid dhinaca aad looga hadlay oo geedaha la jarayo geedaha markii la jarayo marka waa laba nooc midna dad baa ka ganacsado oo maaragtay jaro midna waa dadka reer guuraaga laftirkooda marka geedka haddii gunta laga jaro nacafkiisa dhan baa dhimanaya laakiin waxaa fiican in laamaha laga jaro oo maaragtay yani saas oo kaleento maaragtay geedka aan la wada jarin waxaa kaloo lamid dhulka laftirkiisa oo deegaanka meella waa la degaa meella waa maaragtay xoolaha daaqo marka dadka laftirka reer guuraaga in meel kasta iska dego waayo meesha la dego daaq kama soo baxayo waa way baaba'aysaa marka in lagu wacyigeliyo ay wasaaradda ay ku waxgeliso tala bixin marka waxaan aad u dambaysiinayaa waxaa jirta gobolka banaadir oo kaleento baabuur ama shirkado ka shaqeeya qashinka in la qaado marka waxaad arkaysaa duurkii adigoo laamiga marayo baabuur wasakhdii cafaayadihii magaalada soo qaaday yaa ku soo dhex maray markaasa urka iyo qarmoonka iyo caafimaadka iyo faydhowrka toona ma fiicno marka xilliga habeenkii ay dadka jiifaan oo kale in maaragtay baabuurtaas iyo shirkadaas lagu amro la dhaho xilligaas maaragtay hal la qaado aad baan usoo dhaweynayaa marka insha allah waana ka baxay asalaamu calaykum raxmatullahi barakatu bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdullahi xaashi maxamed waxaan ka mid ahay dhalinyarta baratay oo kasoo graduate garaysay kuliyadda culumta dhulka sidoo kale waxaan aad u danayaa environmentiga
macdanta iyo batroolka maantana barnaamijkan halkan mataqaanaa lagu qabto waa barnaamij aad iyo aad ii xiis gelinaya runtii marka waxaa ka fahansantaha waxyaabaha laga hadlaayo way kaaga xiisa badantaha marka aadan fahansanaynin barnaamijkan cidda soo qaban qaabisay way mahadsan yihiin sidoo kale maxamed iyo ifraax aan leeyahay waa mahadsantihiin sida quruxda badan oo mataqaanaa barnaamijka aad mataqaanaa wax badan nooga dhacdhacsiiseen su-aalaha environmentiga aan ka qabi karo aad iyo aad ay u badan yihiin ani ahaan laakiin waan soo koobayaa su-aasha koowaad waxay tahay environmentiga marka aan ka hadlayno mataqaanaa muqdisho magaalada muqdisho inta aan la gaarin gobollada magaalada qashinka xitaa haddii laga qaado waxaa la geeyi jiray waagii hore kaaraan haddana jasiira loo bedelay environmentiga meelaa laga qaadaa qashinkii meelaa la geeyaa meesha marka la geeyo waxay noqonaysaa mataqaanaa inuu ii sheegeen meesha ay wasaqowdo biyo ay u imaadaan ay wixii dhalaalaan mataqaanaa ii sheegeen la gubo qashinkaas markuu gudaha uu galo dhulka waxay noqonaysaa biyihii mataqaanaa inuu gaaro waxaa ka dhalan karo inuu ceelashii uu ku faafo sida aan la soconno ceelasha iyo mataqaanaa ii sheegeen iyo magaaladiina waa isku yaalliin biyahaas qashinkaas meesha galay oo ceelasha gaaray cid kastoo soomaaliya iyo muqdisho degan iyo nawaaxigeeda way cabayaan sidee mataqaanaa looga waaqsan karaa oo loo samey karaa daam ama mataqaanaa ii sheeg in la dhiso dhulkii kadib mataqaanaa la sameeyo mataqaanaa qashinkii lagu shubo si aysan biyihii aysan hoos u aadin aysan u gaarsiin qashinkii aysan biyihii aysan u gaarsiin dowladda maxaa ugu qorshaysa arrinkaas inay sameyso tan labaad oo mataqaanaa geeda jarista ah waxay tahay dadka geedaha jaraayo waa la ogyahay baahiya keentay sidii la sheegayo ifaaxi ay ka dhawaajiyeen oo wada ognahay dadkaasi sidee shaqo abuur loogu samayn karaa oo looga celin karaa inay dhirta ay daayaan oo mataqaanaa ay sheegeen aysan dhirta aysan jirin marka aad u mahadsantihiin magacaygu waa miski maxamed horta aad bay u wanaagsan tahay xilligii loo baahnaa ayaa la keenay ra'yigan laakiinse waxaa loo baahan yahay in aad loo dhiirigeliyo bulshada oo ay aad u la sameeyo soomaali ayaana wax waan bilownaa laakiinse ma sameyno waxa fiican in dadka aad loogu dhiirigeliyo marmarka qaar markaa wadada kala maraysa ama magaalada dhexdeeda maraysa waxaa arkaysaa meelo qashinadii loogu talagal in banaanka la geeyo la fogeeyo jidka dhexdiisii ee baabuurta iyo bajaajta iyo bulshada ay maraysa lagu soo daadiyo horta waa foolxumo caalamka iyo adduunka kale kama jirto wadankeena bas ayay ka jirtaa laakiinse waxaan hadda waa la bilaabay dadka waa loo sheegay bulshadii waa loo sheegay wacyigelin waa samayseen laakiin waxa fiican in aad dadka loogu adkeeyo lana sameeyo Soomaali baana horta waxa waa la bilaabaa bulshada iyo social media meel kasta waa la geeyaa laakiin se lama sameeyo waxa oo aan aad yani ugu adkaan lahaa in la sameeyo waad mahadsantihiin aygu waa saado biyo horta dadka bartay cilmiga oo deegaanka laakiin waxa qabaa hal su'aal su-aashaas waxaa weydiinaa agaasimaha gabadha xataa ka jawaab kartaa sidee dadkeena ugu wacyigeli karnaa qatarta ay leedahay ama ay keeni kartaa dhibaatooyinka oo bii'ada marka dadkeena inta badan aqoon uma lahan isbedelka cimilada waxaas waa wax iska khuraafaad oo ay ku dhahayaan marka badanaa ilaaha aaminsanahay waxa wax jira maana ku dhahay marka sidee ugu hortagi karnaa oo dadka oo loo sheegi karaa inay waxay yihiin wax halis ah oo mustaqbalka saameyn keeni karto magacaygu waa cabdicasiis axmed maxamed hal su-aal ayaan wataa horta su-aashayda waxaa waaye badanaa qashashanku waa la qaadi lahaa oo meel waa la geen lahaa qashinka waa la qaadi lahaa oo dadku ay qaadi lahaayeen laakiin weel lagu rido ama wax lagu rido oo meesha markii laga qaado oo meel la dhigo ma lahan haddaan inta ka qaado bac qashin ku jiro wadadana aan maro waxaan rabaa meel aan ku rido laakiin ma lahan meel wax lagu rido oo weel ama wax saas ma lahan marka taas maxaa loo soo dhigi waayey midaas su-aashaasaan wataana magacayga waxaa la yihahdaa cabduul maxamed daleel waxaan ka mid ahay ardada dhigata jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo ku faraxsanahay maanta barnaamijkan aan kasoo qayb galo sidoo kaleeto waa u mahad celinayaa xafiiska agaasinka iyo environmentiska sidoo kaleeto walaasheydana waa u mahad celinayaa oo jaamacad aan kasoo wada baxnay laba su-aal aan wataa
bulshada soomaaliyeed sidaan ognahay qof walba gurigiisa nadiif waaye hataa hoteelkan qofaa iskale nadiif waaye qof walba guriga ka soo baxay gurigiisa nadiif waaye haddana marka la imaado goobaha babliga sida suuqyada laamiyada wasaq waaye maxaa keena marka sababtaas soo lama dhigi karo meelahaas babliga oo meelihii u xil saarnay dowladda soomaaliyeed inay iyada hagaajiso oo iyada ay ka gaabisay su-aasheeda labaad waxay tahay balastikiska ama bacda dhibaatay leeyihiin waa ognahay sidee ku dhici kartaa marka dowladda inay nooga sheekayso bacda balastikiska dhibaatooyinka ay leedahay haddana ee dekadii ay kasoo degto oo aan dalka laga mamnuucin sidee ku dhici kartaa iyadana labada su-aalaha way dhammaysantihiin waste managementiga waa arrin aada u culus qorshaheedana wuu socdaa oo biilkii waste management waa gacanta lagu hayaa hadduu ilaahay yidhaahdo isagana waa la marin doonaa wax badan oo deegaanka laga qaban lahaa waxay yiran yihiin sharciyada deegaanka ee baarlamaanka horyaala hadduu ilaahay yidhaahdo markii la ansixiyo insha allah tilaabooyin ku habboona la qaadi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo insha allah wacyigelinta waxaa u malaynaa dhammaanteen waana laga wada baahan yahay saaxiibkay haddaad wuxuu lahaa maxaa guryaha nadiif ka dhigay meelaha publicana wasakh ka dhigay ilma adeerayaalo public dowlad maaha public dadka waayo macnaha waxaa la rabaa meelaha la isugu imaado dowlad isuguma timaado yaa isugu imaado dadka isugu imaado waa sax waajib aa ka saari lahaanteeda laakiin yaa horta wasakhaynaayo taasaa la rabaa in la ogaado waxaa la rabaa qof walba haddii isaga wasakdiisa uu ilaaliyo ma loo baahanayaba in culayska hadda ka jira deegaanka uu ka jiro iyo in dhibaatada maxaa la yihahdaa laga maro qof walbo isaga wacyigelinta qaybtiisa ka qaato ha sameeyo wasakda ha ilaaliyo dadkana ha dhaho wasakda maxaa la yihahdaa maxaa la lahaa hal iska yareeya dowladduna waxaa waajib ka saaran tahay ilaalinta iyo maxaa la yihahdaa engage garaynta shaqadaas sharciga balastikada waa sax dekeda kasoo degtaa sharcigiisa markii la baasgareeyo baarlamaankuna ansixiyo hadduu ilaah yidhaahdo iyadana waa laga tilaabo qaadi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo yaraa muxuu lahaa maxaa la yidhaahdaaye annagu waxaan nahay dad iska islaama maxaa la yidhaahdaaye waxaan diintaan rumaysanayay ilaahay maxaa la lahaaye climate change iyo deegaan iyo waxaas ma aaminsan qur-aanka isagaa ka hadlay deegaanka qur-aanka ilaahay isagaa deegaanka ka hadlay kuluu washarabuu min risqi illaahi walaa tacthaw fi lardi mufsidiin marka hadduu ilaah yidhaahdo aan taasna isku baraarujin hadduu ilaah yidhahdo waa mahadsantiin agaasime maxamed daahir waxaan kaloo u mahad celinayaa gabadheenna ifraax nuur cali sidoo kale waxaan u mahad celinaa martida doodan ka qayb gashay runtii dood qiimo badan ay ahayd waxaana idinkaga mahad celinaa waqtigiina aad soo horteen muhiimadda ay leedahay doodan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hay-adda wadahadalka bulshada oo noo qaban qaabisay doodan maanta dooda intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa maadaama waqtiga uu maqribkii soo galay waa mahadsantihiin barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gunanadnay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu